السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني كسو دواذا channelka wacdaraha adduunka waxaan idinka codsanayaa inteenan u gudagelin qisadayada maanta inaad channelkayga faafisaan, like saartaan, subscribe saartaan. maadaama aynu ku jirna bisha Ramadaan oo mubaarak ah oo barakeysnaa, waxaanu diiradda saaraynaa noloshii saxaabada radiyallahu canhum, Allah ka wada raali noqday, iyo qisooyinkoodii geesinimada lahaa oo waaweynaa. sanadu markay ahayd 3 hijriyada, mushrikiintu waxay diyaariyeen ciidan aad iyo aad u weyn, kuwaas oo ay u diyaariyeen inay muslimiinta waajahaan. muslimiinta oo markaas Madiina looga iclaamiyay inay jihaad galaan. saxaabadii rasuulka radiyallahu canhum way isdiyaariyeen inay baxaan oo gaalada ka hortagaan oo la dagaalamaan. waxaa kamid ahaa saxaabadii ugu horeysay diyaar garoobay saxaabiga loo yaqaano Abdullah ibn Amr bin Haram. Abdullah ibn Amr bin Haram wuxuu ahaa aabe 9 gabdhood iyo 1 wiil buu dhalay. wiilkuna waa saxaabiga weyn ee loo yaqaano Jaabir bin Abdullah bin Haram oo kamid ah saxaabadii ugu waaweyneed uguna tiro badneyd oo Nabi sallallahu alayhi wasallam xadiista ugu tiro badan ka warisay. Jaabir wuxuu isku diyaariyay inuu aabihiis dagaalka u raaco oo mushrikiinta la soo dagaalamo, laakiin aabihii wuu diiday oo wuxuu kula dardaarmay inuu joogo oo uu ka warqabo oo uu daryeelo walaalihiisii hooyadiis. Jaabir wuxuu yiri radiyallahu anhu, aabahay baa wuxuu yiri waxaan rajaynayaa maanta inaan noqdo qof koobaad ee Ilaahay dartiis wax u gaaraan, ee waxaan kaaga dardaarmayaa gabdhahayga khayr. taasina waxay ahayd riyadii Abdullah ibn Haram inta uusan dagaalka gelin oo uusan cadawga la kulmin. dagaalkii wuu bilowday. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu rumeeyay riyadii Abdullah ibn Haram oo wuxuu noqday midkii koowaad ee Ilaahay dartiis ku shahiida dagaalkii Uhud. dagaalkaas oo ay jab badan kala kulmeen muslimiintu. dagaalkii markuu dhamaaday, gaaladii waxay bilaabeen inay muslimiinta meydadkoodii ay jarjaraan oo ay suurad xumeeyaan. markaa waxay googooyeen qayb kamid ah dhegtii iyo sankii iyo meelo badan oo jirkii kamid ah Abdullah ibn Haram. Jaabir wuxuu yiri radiyallahu anhu, markaa aabahay arkay meydkiisii sida loo galay oo loo jarjaray oo loo suurad xumeeyay, baan taan dul fariistay iska ooyay. dadkii oo dhan baa suuka yimid ayagoo isku dayay inay aamusiyaan oo iga kiciyaan. eedaday baa igu timid meesha, ayaduna waxay bilowday inay oydo. rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa noo yimid markii dambe, markaasuu ku yiri ha ooyin, hana ka oohisaynin. malaa'igtu kamaysan suulin inay garbaheeda baalal uga dhigayso ilaa aad kor u qaadaan oo meydkiisa meesha ka qaadaan. intaas kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu amray in la duugo dhammaan shuhaadadii Uhud, mid walbana lagu duugo meesha uu ku nafbaxay oo uu ku shahaado qaatay. waxaa la duugay Abdullah ibn Haram, waxaana la duugay Abdullah ibn Jamuh radiyallahu anhum. hal qabri baa lagu wada duugay, maadaama qofka shahiidka diintu aysan banaynin in la dhaqo. waxay wada noolaayeen noloshoodii daqiiqadii u dambeysay isku meelna way ku wada shahiideen. sababtaas baana keentay in hal mar isku meel lagu wada duugo, hal qabri lagu duugo. muddo kadib rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa Jaabir wuxuu arkay isagoo murugsan oo niyad jabsan mid kamid ah wadooyinka Madiina. Nabi sallallahu alayhi wasallam wuu weydiiyay Jaabir oo maxaa kugu dhacay oo ku arkayaa inaad qalbi jaban tahay? ma kuu sheegaa wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala aabaha uu kala kulmay? Jaabir wuxuu yiri bala ya rasuulallah, rasuul Allah ii sheeg. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ma kuu sheegaa Allah subhanahu wa ta'ala inuu aabaha la hadlay si bareer ah, macnaheedu ay tahay inuu Allah subhanahu wa ta'ala wax teed ah iyo wax xijaab ah asaga iyo Abdullah ibn Haram aysan u dhaxaynay, si bareer ah u wada hadleen. markaasuu Allah subhanahu wa ta'ala weydiiyay, adoonkaygiiyow i weydiiso waxaad rabtid waan ku siinayaa. Abdullah ibn Haram baa yiri Allah ayaa waxaan ku weydiisanayaa inaad adduunyada ii celisid oo mar labaad adiga dartaa la ii dilo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri taasi annaga waxaan nooga hormaray oo aan hore u sheegnay inaan dib dambe leedin soo celinin hadaan bar nolosha adduunyada ka tagtaan. markaasuu yiri Abdullah ibn Haram, ilaahayow gaarsii cidii iga dambeysay nimcada iyo barwaaqada iyo shahaadada fadliga ay leedahay iyo waxaan ku suganahay Allah gaarsii. Allah subhanahu wa ta'ala markaa wuxuu soo dejiyay
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. 46 sano kadib markii uu shahiiday Cabdullaahi bin Xaraam waxaa ku dhuftay magaalada Madiina daadad aad iyo aad u xoog badan kuwaasoo fayday qabriyaashii dadkii lagu dilay Uxud, saxaabadii ku shahiiday Uxud. qabriyaashii ay la fayday waxaa ku jiray qabriga Cabdullaahi bin Xaraam iyo saaxiibkiisa Cabdullaahi bin Jamuux. Jaabir wuxuu leeyahay isagoo markaa noolaa, waxaan u qodnay qabri labaad si aan u gelino, laakiin maanan doonin markii dambe inaan meesha ka bixino, waayo waxaan helnay markaan qabriyadoodii furnay oo faydnay ayagoo aad moodid inay hurdaan, sidii ay adduunka uga tageen ah, waxba aysan iska bedelin. riwaayad kale waxay sheegaysaa Cabdullaahi bin Xaraam inuu dhaawac ka gaaray xabadka markuu dhintay oo la duugayayna gacantiisu ay meeshii dhaawaca saarnayd. markii ay damceen inay qabrigiisii bedelaan oo gacantiisii kor uga qaadeen dhaawiciisii, uu dhaawici dhiig baxay sidii qof hadda la duugayo cusub. intaas bay ku egtahay qisadayadii maanta. haddaad ka hesheen fadlan mar kale like, share and subscribe.